aad baan ugu faraxsanahay oo madaxweynaha inaad nala caweyso maqaayadaan ugu timaado oo soo marto anagana kalsooni bayna siinaysaa adigana kalsooni bay ku siinaysaa ee dawladnimada waana waxyaabaan ku faraxsanahay wixii dhiman wala gaarto waxay ilaahay in weyn baan ku qabjay laakiin ma sha Allah madaxweyne dhalinyarada tahay waxaan dhalinyarada waa taa kaaga mahad celinaa madaxweyne gaalkacay waa amni waxaana muujinaya qaabka wax weey maqaayadaha ugu caweynayno qaabka adoo madaxweyne ugu sareeyay wadanka iyo state ugu sareeyay dhalinyarada shacabki oo shaaha ma sha Allah wada cabaya waxay muujinaysaa heerka Puntland ay ka gaartay amniga noo sheekeynayo xaaladda dalka naga wareysanaya marka ma sha Allah waa wax weey lagu farxo dhalinyarada dhiirigelin bay noqonaysaa haddaan naga reer gaalkacyood nahay dhalinyarada waayii hore iyo deegaankaba waxyaabo waxa jiri jiray qaxqax baa jiri jiray xukuumadda markay u dhalatay horta ma naqaxina ama kambaliyaan waxaan diraynaa aad iyo aad baan waxaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyo bulshada iyo wax ka shaqeeyo dhanba ugu mahad celinaynaa waxaan u baahanahay horumar baan u baahanahay waxaan u baahanahay xasilooni siyaasadeed baan u baahanahay waxaan u baahanahay dhaqaalaha u baahanahay waxbarasho iyo wax weeye tacliin baan u baahanahay waxaasna waxay ku xiran yihiin madaxweynena waraysta goobta noogu yimaada wax kasta oo xaaladayada wax weeye aan tabanayno ogaada